بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan u dirayaa salaan waxaan ka codsanayaa Ilaahay idinkiisa inay cadowga iska dulqaadaan guushu waa dhowdahay shabaab qarax mooye wax kale oo ay awood u maanta hayaan ma laha sida aad ogtihiin shalay magaalada Beledweyne ayay 3 qarax ku weerareen qarax iyo miin dhulka lagu aaso waxay la mid tahay adoo qori inta xabada garabka saartay leebka qabta afkiisa gadaal u jeediyo hooyaday ku dhacayseen ma ogi walaalkay ku dhacayeen ma ogi cidis ku dhacaha ku dhacay yiraahdo oo leebka dawada iska qabsado la mid tahay waxaasna waa sheeko fuliga ayaa noocaas ku dhaqmo walaalayaalow ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ha u soo baxaana dagaalka ha xoreystaan dalkooda shalito meel la yiraahdo Wardaadoy ayaan ka qabsanay ciidankii ceel cad joogina waa soo dhaqaaqeen ceel idaad ayay yimaadeen dhaqdhaqaaq badan ayaan ka wadnaa meesha aaga aan joogno insha Allah waxaan rajaynaynaa aaga aan joogno mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ha ogaadaan waa aag aad u weyn oo furan Bokool xadkeeda gobolka Hiiraan la leeyahay waa aag laga bilaabo Beledweyne ilaa Bokool aag waaye bay xad baad la leeyahay gobolkan iyo xadka uu la leeyahay Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe markii laga hadlayo gobolka Hiiraan waa inaad cadowga ka xoreysaa Shabeellada Dhexe xadkeeda ka bilowda Beledweyne oo dagaalka ka istaarmay ilaa iyo Shabeellada Dhexe inaad wadid Shabeellada Hoose xadkeeda aad geysid Bokool xadkeeda aad geysid marka 4 gobol oo xaduud kula leh inaad xadkooda soo xiratid ayaa gobolkan la dhihi karaa waa xor dhulka aagaas intaas leeg oo ceelasha ay taagtaako usu jiraan oo cadowga ay ku jiraan haba yaraatee sector ay ka tirsan tahayna ayna jirin amisoomna ayna joogin culayska ay leedahay waa la ogyahay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka Janaaral Odawaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka oo ah taliyaha ciidanka qalabka sida ra'iisul wasaaraha dhammaan waa inay u howlgalaan in annaga waa xoreyn karnaa laakiin inuu aagaas badan yahay oo haddii 3 magaalo Boqdi iyo Ceel Cali haddii la qabto oo aan iraahdo ciidanku reeb hadee dadku ayna yihiin dad macaawisley ay yihiin suurtagal ma noqonayso inaad aagagii kalena ciidan u heshay marka laba maadaba dowladda laga rabaa in meeshii aan qabanna ay noo sii hayaan iyo in ay meelaha nala qabtaan oo meeshii aan qabanana aan ciidan ku reebno ilaa qofku noogu dambeeyo oo macaawisley muxuu ahaay aag ku herayo marka arrintaas idaa dowladda waa inay muxuu ahaay ay qaadataa kaalinteeda dhulka intaas leeg oo aana joogin ciidan dowladeed miinada ay tahay wada abuureen cadowga ay miinada abuureen miina baariyaal aan u baahannahay oo tababaran cadowga ku soo aruursaday inuu isqarxiyo war qarax baabuur iyo qofba waa iska ilaalin karaa laakiin miinada dhulka aan ku dagaalamayo miinada dhulka lagu aasay waa in loo helaa miina baariyaal waa in la helaa unugyo nala shaqeeyo oo miinada nala baara oo haddii aan aragno naga furo inaan helno waa muhiim qadar Allahu yaan siiga soconnaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in aagan ciidan soo diro falkeeda ha galo arrinta magaalada Beledweyne mudan madaxweyne magaaladan booliisna ma joogo nabad sugidna ma joogto qaraxda ki yimid Bokool shabaabkii ku soo jabay Itoobiya kii Bokool ka yimid
kii baydhabo laga soo raacdeeyey kii laga soo raacdeeyey muxuu ahay deegaan kale dhammaan waxay isugu yimaadeen magaalada dhexdeeda magaalada beledweyne ma aha hadda baadiyaha ilmahooda waxay keensadeen magaalada way buuxdaa ciidan baaraa loo baahan yahay nabad sugudaa loo baahan yahay oo baarta magaalada ugu yaraan waa in la helaa 100 askari oo muxuu ahay nabad sugida oo magaaladan baaritaankeeda bas ah muxuu ahay ka shaqeysa waa in la helaa 100 booliis ah oo kan la soo qabtaa xafida oo xira oo haya la helaa xerooyin ku filan way leedahay xerooyin fiican oo booliiska ayaa ku yaala waa la nadiifin karaa magaalada ha la nadiifiyo haddii aan buqdi iyo warad iyo ceel cali aan ka dagaalamayno ee magaalada beledweyne ay xor ahayn waxaa weeye waa waxaan aan suurtagal ahayn waxaa lii sheegay madaxweyne ku-xigeenkii iyo maamulkii inay u guureen maxay ahayd ceel jaalle ay u guureen waayo madaxtooyadiia inkastoo aan ka jeclahay meel shalay aan kusoo booqdo madaxweynaha inuu joogo oo cadowgaasna u nuglaalinoosna dhihin ceel jaallaas u cararay ayna ku faanin muxuu ahay waxaa laga yaabaa in kalsooni darre booliiska yaroo meesha joogay iyo muxuu ahay isku dhexsanaanta jirta awgeed inay sababayso marka madaxweyne waxaan la hadlayo waa madaxweyneheenii waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa taliye odowaa waa taliyaha booliiska inta aan idinka codsanayo oo ah magaaladan in ciidan loo soo diro falkeeda gala annaga inaa ciidan lagu soo taagulaysiin oo ciidan u soo dirtiin miinada naga bixiyo ciidamadaas jooga ceel cad ka soo dhaqaaqay iyo kaan annaga inta ka dhaqaajin intaba waxay u baahan yihiin kaalmadiina iyo taakuladiina ay u baahan yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu